السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada walaalayaal channelkan Ogaal Maal TV idinkoo mahadsan subscribe noo saara. Maanta waxaan wax yar ka hadlaynaa qurbaha Yurub, khaasatan Yurub oo dhalinyaradeennu ay in badan oo ka mid ah mataqaanaaye ay naftooda halis u soo geliyaan si ay u yimaadaan. xaqiiqatan markay yimaadaan ay soo jabaan, ay soo rafaadaan, mataqaanaa kuwa badanba ay naftooda ku waayaan. laakiin markay yimaadaan wixii ay ku fikirayeen markay ka waayaan, qofkii wuu isbedelaya oo isla markiiba mataqaanaaye markuu waliba hadduu nasiib uu helaba deganaanshaha wadanka, markuu mataqaanaa qofku helaba deganaanshahaas uu qofku dhafaad dheef ka maraya. markuu qofkii uu helo ama haddii uu waayo, dhalinyaro fara badan oo waxaa jirta hadda markaad magaalooyinka Yurub oo dhan aad inta badan aad marayso, santarada iyo meelaha suuqyada, meelaha waaweyn, waxaad arkaysaa dhalinyaro gidaarada mataqaanaaye jiifa oo ku dhibaataysan. qofkaasi wuxuu ku rafaaday deganaansho inuu waaye ayay u badan tahay, ama inuu fikirkiisa uu ka haystay markuu meesha yimid wixii markii hore ku fikirayay uu ka waayay. oo markaad meesha timaado nolol khatar ahoo saad u fikirayso maaha. meesha markaad timaado sidaad u fikirayso inaad meesha lacag taalo oo markiiba aad noloshaada wax walba oo sidaad u fikiraysay aad bay u kala fog tahay. marka waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo gidaarada ku dhibaataysan oo xataa laga yaabaa inaysan dadkoodii xataa ayna war ka hayninoo maskaxiyan dhibaato xataa u gaadhay. markaad Yurub timaado waxaa kuu bilaabanaysaa halgan adag oo hadde marka ugu horeyso horta inaad ka fikirto bal inaad deganaansho hesho. taasa waxay qaadanaysaa waqti oo fikir badan. haddii aad deganaanshihii weydo, waxa weeyaan waa dhibaato aad fara badan oo waxaad galaysaa warwareeg iyo kolba meel u carar iyo kolba wadan aad maaragtay dhibaato aad u fara badan. deganaanshihii baabaad heshay ka soo qaad. markaad deganaanshihii hesho, haddana waxaa haddana inaad wadankii si aad ula qabsan lahayd inaad bilowdo luuqadii baro, shaqo raadi, mashruuc aad u dheer. marka waxaad arkaysaa Soomaalida intooda badan kuma faraxsanade. waxaad arkaysaa iyagoo aan ku faraxsanayn oo joogitaanka halkan ay joogaan. haddana sidaa darteed dhalinyaro maanta waxaa jirta naftooda intay biima soo geliyaan haddana la dilayaba oo naftooda dhan waayayaba, iyo kuwa lacagan caadi ahaan laga dalbanayo intuu magafa qabsado boqolaal lacaga laga dalbanayo, kumanaan kun oo dollar. lacagta intaa dhan hadduu wadankii lacagta aad kusoo tahriibayso, haddaad wadankii intaad fikir aad keento aad ku maalgashato noocay dooni haato, iyo boqolkiiba boqol kaaga faa'iido badan. waa timid markaad timaado Yurub maaragtay lacag laga dhigto ma jirto. hadday xataa wax yar ku soo galaan, waa waxa yare biilka yare reerkiina u dirayso iyo naftaada. lacno waxa loo baahan yahay shay kasta waa lacag weeye. dukaanka haddaad tagto waxaad cuntaad u baahan tahay, guriga kiru u baahan yahay inaad kirada iska bixiso, internetka yare isticmaalayso waa lacag, wax waliba waa lacag weeye. marka wixii yara ku soo galay haddana dib ayay u baxayaan. marka taasa waxay keenaysaa hadday dadka Yurub ay lacag haystaan, waxaad arkaysaa dad 20 sano jooga Yurub oo weligood wadankii aadinba. marka lacagtu waxa weeyaan waxa yar ee ku soo gala dib bay ugu noqonayaan, oo waxay dib ugu noqonayaan noloshii bay dib ugu noqonaysaa. sida ay tahay haddana qofkiisa ay tahay kuma farxsano. waxaad leedahay meesha niyo wallahi 40 saac diintaydii anugu macnaheed taqaanaaye, haddaad meesha ilmo ku dhashado ilmahayga say noqon doonaan. maalintii masaajid aad ku tukato oo 5 waqti ma jiro, aadaan ma maqlaysid. sida ay tahay haddana dadkeenu waad aragtay dhalinyaradeennu 40 saac waa kuwan aragtay naftooda halis u soo gelinaya. marka xaqiiqada taala iyo way kala tahay. xaqiiqatan wadankii qofkii lacag yar oo lacagtu ku soo tahriibay haysta, waxaa ka fiican intuu fikiro oo barnaamij keeno uu ku shaqaysto. shaqaduna ceeb male. dadkeenu waxaa la yaabaysaa shaqada ceeb bay ka dhigaan. shaqooyinka yaryar inuu qofku qabto ceeb buu arkaaba. laakiin markuu Yurub yimaado wax kastoo loo diro
wuu ka shaqaynaya wax kasta oo mataqaanaa ka shaqaynaya oo ka shaqaynaya marka maxay ku kala duwan yihiin marka aad waddankaaga joogtaaba sharaf ku leedahay inaad shaqaysato shaqada yaryar ee hoose waxay doonaha noqotay inaad wax ka bilowdo oo aad sidaas dalkaagina ku joogto cidna kor iyo hoostoona ku fiirinaynin waxba aadan dareemaynin sharaf aa ku nooshahay laakiin halkan markii dhaldhalaalka yar hadda aad aragtay iyo meelaha yara tareemadu marayaan iyo meelaha tareemada meel dhulka dhaldhalaalaya aragtay hadda dad baa gidaaradaas aad ku arkaysaa isagoo qof jiifade iyagoo jiifa gidaaradaas aad arkaysaa marka dhaldhalaalkaas iyo muxuu kuu sheegayaa adiga haddaadan ahayn qofka dhaldhalaalkaasi uu faa'iidada u hayo ya waxba maada baranin waxba laguma soo barin inaad wax barato ood wax fiican barato